السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني في الله وأحمد إيو درس درسين إن شاء الله. أنت أسيب قد محاذيك رأي قلنا لها كل دوان لما أسبوع حالي سوينا 10 سو قليل مرك لبضان أسبوع آتي أو شغل مرك 10 وانسو كلين ويا مركتاس يقرأ لنا قدام مرك سو قليل وما هتستي أنت قف مش يسودر يسوي دي 10 دقائق أما حقيقة شيء أما 10 ولا واي أما سو قليل منو جنبي سيد كده هاي أما لو ما أنا 10 دقيقة سوينا جنبي سيد مرك سو قليل أنا 10 كإذا ما جنبين سو قليل كم هتستي نكست مش يسودر تين لكن إن يرى مشغول نقضي 10 إن شاء الله سدود أيون وسعران أو مالين أحد إن زوج لنا هل 10 كسبسن سيستم برنامج أما مشكلة كمبيوتر كيس إن حلينه يصل كله 10 هنا أو تحن وصل شورت كات مرة روح أنا جرتي مالين أحد كلي أنا 10 سوق نجي لكن إن شاء الله هتروح كليها مالين سبت إيو مالين أحد مالين سبت أو كسبسن كلي سيستم برنامج تليفون أما مشكلة كمبيوتر أما تليفون كسبسن أحلينه يصل كله مالين أحد أو نقرأ إن شاء الله 10 تحن كلي هذا وحنوصل 10 شورت كات ما إن شاء الله حشر هنا قيبتي سدحات إلا شرط المقدمان أيام 10 العصوب إن شاء الله إن سي دياري أما إن طليرات تداول إن البضان أو 10 كاس أندورين إن شرح ديت أما إن شاء الله 10 كلا إن أنيجا دورتو أن شرح دون إن شاء الله مركب 10 كلا نصيب ما إن شاء الله قيب سدحات أو شورت كات مركب ورك إنه سيرين وبالله التوفيق. كنا أوهريو و Windows D wuxuu ka caawinaa in uu ku soo celiyo desktop ama meesha aad joogtay hore oo joogto desktop-kan hadda aad u furan yahay page-kan ama aad u furan yahay file-kan aan taabto Windows D automatic waxa arkaysaa in uu ugu soo celiyay desktop-ka marka wuxuu ka caawinaa in uu ku soo celiyo desktop marka hadda mar kale taabto wuxuu ii soo celinaa meesha ugu dambeysay aan joogay marka waad taaban kartaa halkaan soo degaysaa mid kale soo degaysaa laakiin kani waxa u jeedaa inay tahay shaqo dheer marka shortcut waxaan u baranaynaa in aad ku noqotid keyboard isticmaalkiisa professional oo shaqadaada ku fududeey oo shaqada dhan ku fududaato marka waxaad taabanaysaa keli Windows D sida aad desktopka automatic u imaatid shortcutkeena labaad sidoo kale waa Windows A wuxuu ka caawinaa inuu ku furo failka oo computerka ama sawiraha ama failalka uu ku jiro dhan inuu hal mar ku furo automatic adigoo meel jirin ama wax kale ka jirin waxaad taabanaysaa Windows A waxaad arkaysaa inuu ku furayo failalkan qasab ma aad desktop joogtid meel waa joogi kartaa waxaad taabanaysaa keli Windows A waxaad arkaysaa in uu failasha desktop computerka sawiraha failasha dhan inuu automatic ku furo shortkeena saddexaad waa Control B wuxuu ka caawinaa sidoo kale inuu wax ku soo printer gareeyo hadda for example ahaan Word joogta ama document qortay ama file qortay wax doonis qortay ama sawir sidoo kale ina printer gees aad doonaysaa qasab ma ah ina printer ka jiris xagoo ku jira xagoo yaala dhinacaan ka jiriya waxa taabanaysaa kali Control B waxa arkaysaa automatic inuu ku gudbinayo page wax ka printer galinaysid hadda soo jeedin Control B aan taabtay page kan joogo ii sawiray wuxuu dhahay xagee ku printer galinaysaa am printer ka dooro magaciisa printer ka dooranaysaa automatic waxa dhaysaa ii printer galay marka kaasina waa Control B Control fartu ku helaysaa kadib waxa taabanaysaa B shortkeena afaraad waa F1 sidoo kale F1 halkan qoran ilaa 12 ah waa shortcut leedahay sidoo kale markaan taabto F1 automatic wuxuu gudbinaa page-ka oo caawinaada haddaan taabto FN taabanaysaa kadib F1 hadduu ku shaqeyn waayo F1 kali waxaad taabanaysaa FN hadduu keyboardka leeyahay F1 aad taabanaysaa waxa arkaysaa inuu gudbinayo page oo caawinaad hadda wax laga caawinayo doonaysid oo su'aalo meesha qabto uu ka caawinayo systemka ama programka wax isticmaalaysid xiligaas waxaad taabanaysaa F1 shortkeena shanaad waa F2 sidoo kale F2 wuxuu ka caawinaa in aad file sawir documenti wuxuu doona ahaada inaad magac ka bedeshid hadda for example aan halkan file ay yaalo waxaan doonaa inaan magac ka bedelo normal ahaan waxaan taabanaa meeshan aan taabanaa dhinac midig ilaa hoos soo degaa markaas aan magac ka bedeli karaa laakiin hadda isticmaalayo shortcut ahaan waxaan taabanaa kali file ku dhufanaa waxaan taabanaa F2 waxa arkaysaa in magac automatic ka bedeli karo anigoo mouse dhinac midig taaban ama dhinac bidix taaban ama wax taaban automatic shaqada anigoo fududeystay in aan bedeli karo shortkeena lixaad waa F5 sidoo kale wuxuu ka caawinaa inuu page-ka ku refresh gareeyo page-kana joogta ama page ka dhageysanaysi page-kii uu iscaliqay ama uu istaagay waxaad taabanaysaa F5 waxaad arkaysaa inuu page-kii mar kale refresh isku dirayo automatic marka hadduu ka istaago computerka waxaad taabanaysaa kali F5 refresh cusub ayuu isku diraa keyboardka afwan keyboard ma aha page-ka aad isticmaalaysa ama website-ka aad joogto adiga shortkeena toddobaad waa Windows M sidoo kale wuxuu ka caawinaa in uu page-ka ku yareeyo marka sidaan hor u sheegnay Windows D marka taabatid page-ku ku yaraana
sidoo kale markaad taabatid Windows M asigana page-ka wuu ku yareynaa, laakiin farqiga u dhexeeya markaan taabto Windows M waxaa arkaysaa inuu page-ka is yareeyay, laakiin page-ka ma soo ceshan kari. laakiin markaan taabto Windows D page-ku is yareeyay, laakiin markaan taabto wuxuu isoo celinaa page-ka ugu dambeeyay aan joogo, meesha ugu dambeeyay aan joogay. marka Windows M wuxuu ka caawinaa inuu kaa yareeyo laakiin kuma soo celinayo, laakiin Windows D wuuna kaa yareynaa desktop u geynaa wuuna kuu soo celinaa waxa isticmaalaysay. عشان maanta meeshaan kusoo koob waxaan jeclaan lahaa in la fahmay oo la faa'iideystay. marka hadaa fahamtay oo ka faa'iideysta ha iloobin asxaabtaada walaalahada si gaarsiisa ugu sii faa'iideystaan. sidoo kale ha iloobin like iyo share saartid sida asxaabta iyo walaalahan u sii gaaraan. marka like garaysid marka share garaysid ma aha in aniga wax ka faa'iido, laakiin asxaabta iyo walaalaha wax sii gaarsi. sidoo kale aniga waxaan ogaanaa inuu qof ka faa'iideystay casharkan oo qof jeclaaday oo like saaray. marka hadaa casharkan ka faa'iideystay kili waxa saaraysaa like, hadaa ka faa'iideysanin ama wax ku siyaadin qasab ma aha inaad like saartid. marka sidoo kale soo booqata page-kayga Somali Professional ku sharxo cashiro aad fara badan ku saabsan dhinaca technology-ga, iyo sidoo kale message isu diri kartaa Somali Professional page-ka galaysaa waxay isu diraysaa message xilli walba aad doonaysid oo mushkilada ku haysto oo dhinaca technology-ga ah. aniga insha Allah waxaan isku dayaa in aan kula xaliyo mushkiladaas. sidoo kale soo booqata website-kayga oo sameeyay oo ah somali-professional.au oo ka helaysid cashiradan oo duwan ayagoo qoran ah helaysaa insha Allah. marka sidoo kale walaalkiin Axmed waa inuu cashir dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan soo koobaynaa ama waxaan sharxaynaa 6 program lagu isticmaalo dhinaca muuqaal sameyska. muuqaal sameyska waxa loola jeedo saan jeclahay qof walba u yaqaana inaad video jarjartid ama inaad film isku keentid ama film wax ka qaadatid ama xataa sidoo kale inaad sawiro aad furwad inaad ka dhigtid muuqaal ama